kusoo dhawaada saaxiibayaal wararka ugu waaweyn Soomaalida. Canada waxa ay ka digaysaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee baasaboorradeeda haysta inay ka baxaan gudaha Soomaaliya si degdeg ah iyadoo xaalado aad u adag dawladda Canada ka sheegtay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida sida Garowe iyo sidoo kale Hargeysa. qodobada kale ee ku jira wararkeena waxaa ka mid ah Saabiriin oo ah gabar maalmo ka hor lagu dilay magaalada Gaalkacyo iyada oo kufsi iyo dilba la isugu daray. halkaas ayaa ehelkeedu warbaahinta kula hadleen waxaana ilaa iyo hadda aanan la aasin meydkeeda oo muddo ku siman 4 maalmood talaagad ku jira. sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararkeenan howlgallo gaar ah oo ka dhacay koonfurta gobolka Mudug ee dawlad goboleedkaasi Galmudug. xubno dagaalamayaal ah oo shabaabku ka tirsan ayaa lagu dilay, qoryo ayaa lagu furtay iyo saanad ciidan. wararkaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal. aynu ku bilowno. dawladda Canada ayaa waxa ay muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Soomaaliya uga digaysaa inay ku sii sugnaadaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan baasaboorrada dadka haysta ee Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha caasimadda iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida sida Garowe iyo Hargeysa ama Puntland iyo Somaliland intaba. waxa sidoo kale dawladdu ay soo saartay waa Canada dhowr qodob oo ay kaga hadashay xaaladda Soomaaliya. waxa ugu horeeya xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka oo ay dawladdu Canada sheegtay in xilligan ay cirka isku sii shareerayso madaxda Soomaaliyeed kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ama guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay isku dhigan yihiin wax walbana ay ku suuragal tahay. sidoo kale Canada waxa ay sheegtay in caasimaddu la filayo ama laga cabsi qabo inay ka dhacaan qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo military ah kuwaas oo ku sii faafi kara deegaanada kale ee Soomaalida sida magaalooyinka Garowe ilaa iyo Hargeysa. waxaase ay sheegtay in dhammaanba ay ku lug yeelan karaan siyaasiyiinta xilligan ku sugan gudaha Soomaaliya oo wax walba ay ka suuroobi karaan kuwaas oo ay markaasi u muuqato inay ku weerarayso dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale qolyaha mucaaradka ee ku sugan gudaha caasimadda. waxa ay sidoo kale dawladda Canada sheegtay in Somaliland iyo sidoo kale Puntland iyagana xaaladooda mar walba ay isbedeli karto, iyagana dagaal uu ka dhex qarxi karo ama xitaa magaalooyinkooda ay ka dhici karaan falal lid ku ah ammaanka, taas oo khalkhal gelin karta ammaanka muwaadiniinta Canadiyaanka ah ee ku sugan gudaha maamuladaasi Somaliland iyo sidoo kale Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya. sidoo kale qodobada kale ay soo saartay dawladda Canada waxaa ka mid ah siyaasadda Soomaaliya oo halkii ugu xumeed maraysa oo ay sheegtay inaysan marnaba suuragal ahayn in muwaadiniinteeda ku sii sugnaadaan gudaha xaalad ama gudaha Soomaaliya oo xaaladeedu ay ka sii darayso. waa sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Canada. sidoo kalena waxa ay soo saartay warbixintan 13 bishan aynu ku guda jirno ee November. qodobada kale ee lagu sheegay waxaa ka mid ah in uu gudaha Soomaaliya iyo Somaliland ka jiro afduub. waxaase dawladda Canada ay muwaadiniinteeda uga digaysaa inay Soomaaliya ku sii sugnaadaan maadaama xaaladahaasi oo idil ay ka jiraan gudaha Soomaaliya. waxa ugu xunna ay yihiin afduubka iyo qaraxyada iyo sidoo kale dagaalada tooska ah ee laga cabsi qabo inay ka dhacaan gudaha Soomaaliya. lama oga ilaa iyo hadda xogtan inta ambaba sida ay u heshay dawladda Canada iyo cidda ay ka heshay dawladda federaalka ah ee Soomaaliyana ilaa iyo hadda lagama hayo xog rasmi ah oo ku aadan in waxyaabahani oo dhan oo dalka la sheegayo inay ka dhici karaan ay dadkeeda Soomaaliyeed ama muwaadiniinteeda uga digayso. sidoo kale qodobada ku jira warbixinta ay soo saartay dawladda Canada waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde oo habeen iyo maalinba shaqeeya in mararka qaarkood loo xiro falal lid ku ah ammaanka oo ay ugu horeeyaan qaraxyada iyo dagaallo ama isku dhacyo ciidan oo ka dhex bilowda gudaha garoonka, taasi oo keentay sida ay sheegtay dawladdu warbixinteeduna ku daawacday in garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde waqtiyada qaar ay u xirmaan sababo cabsi, taas oo inta badan iyadoo aan muwaadiniinta lagu wargelinin ay dhacaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah. sidoo kale waxay dawladda Canada sheegtay in xaaladda siyaasadeed ama guud ahaanba magaalada caasimadda ah ee dalka ay tahay mid aad u kacsan, walaa xooganna uu ka jiro siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ahna ay ku wada kulansan yihiin, sidoo kalena hub la isku haysto, taas oo mar walba ay sheegtay dawladdu warbixinteedana ku tilmaamtay inay ka dhici karaan falal lid ku ah ammaanka. sidoo kale waxa ay sheegtay in dadka baasaboorrada Canadiyaanka haysta ee isugu jira Soomaalida iyo dadka kale ajaanibta ee ka yimid gudaha waddankaasi Canada inay dib uga baxaan ama si degdeg ah uga baxaan maadaama dawladda Canada ay sheegtay inaysan safaarad ama qunsul ku lahayn gudaha Soomaaliya, taas oo haddii dhibaatooyinkaasi ay dhacaan ka caawin kara inay si degdeg ah uga baxaan Soomaaliya. laakiin taa bedelkeed haddii ay ka dhiga adeegaan digniintan oo halkaas ay ku sii sugnaadaan wixii ku yimaada
iyaga ay isbixin doonaan oo dowladdu wax garab ah amaba gacan ah aysan ka geysan karin. sidoo kale qodobada ku jira warbixinta waxaa ka mid ah in biyo iyo koronto la'aan laga yaabo inay soo wajahdo Soomaaliya, taas oo warbixintan si weyn ay u taabatay sidoo kalena lagu falanqeeyay. xaaladda Soomaaliya ayay warbixintan si gaar ah diiradda u saartay oo dowladda Canada ay soo saartay 13 bishan aynu ku guda jirno ee November, taas oo siyaasiyiin badan iyo xubno kale oo qubaro ay ku jiraan wax badan ay isku weydiinayaan. sidee ayay ku ogaatay dowladda Canada intaani oo dhan inay dhici karaan? sideese ay ugu suura gashay in xogtan ay gudaha Soomaaliya ka ururiso? ma jirtaase qaraxyada iyo mararka qaar weerarada dhaca inay iyadu ku lug leedahay? dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo hadda wax war ah lagama hayo tan iyo markii ay soo baxday warbixintan, ama ay ku xaqiijinayso inay jiri karaan halisyo ama ay ku beeninayso dhammaan jiraanshaha waxyaabaha ay soo bandhigtay dowladda Canada oo muwaadiniinteeda Soomaalida iyo kuwa kale ajaanibta isugu jira ee gudaha Soomaaliya ku sugan. marka laga soo tago warbixintaas, waxaa sidoo kale jira in baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay si weyn ay u qabsadeen hadalheennada ku aadan dhacdooyinkan oo la sheegay in siyaasiyiinta qaar ay ku lug lahaan karaan, taasi oo dowladda Canada ay sheegtay in war walba ay suuragal tahay inay dhibaato ka dhacdo gudaha Soomaaliya. antaas kaga talaabno warbixintan iyo waxyaabaha kale ee ku dhex jira saaxiibayaal oo si weyn dadka Soomaaliyeed ay ugu feejigan yihiin waxyaabaha ka dhacaya gudaha caasimadda. aynu eegno dhinaca iyo sidoo kale koonfurta gobolka Mudug. deegaan lagu magacaabo Dumaaye oo qiyaastii wax ka badan 50 kilomitir u jira degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamo kuwa deegaanka ah ee ku sugan halkaas lagu magacaabo Xaradheere. waxaa la tilmaamay in ay sahmin ahaayeen ciidamadan oo ay ka baxeen gudaha degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug una jiheysteen dhinaca deegaankan oo qiyaastii 50 kilomitir u jira halka lagu magacaabo Xaradheere. waxaana la sheegayaa in halkaas ay ugu tageen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab. halkaas waxaa gacanta ku haya kooxda oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabul ciidan ka waday si ay kaga hortagaan weerar kasta oo ka dhana iyaga ee ku wajahan deegaanada ay ku sugan yihiin. waxaa taa beddelkeed la tilmaamay in weerarkaas lagu dilay ku dhowaad 4 xubnood oo dagaalamayaasha kooxda ka tirsan oo ay ku jiraan rag horjoogayaal ah oo si weyn looga yaqaano deegaanada hoostaga degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug, dowlad goboleedkaasi Galmudug. sidoo kale ciidamadu howlgalka inta ay ku guda jireen waxa ay sheegeen inay ku soo furteen qoryo gaaraya ilaa iyo 2 qori oo ay sheegeen inay yihiin noocoodu AK47 oo ay ka mid ahaayeen qoryaha halkaas ay ku haysteen dagaalamayaasha al-shabaab. saraakiisha ciidamada deegaanka ee howlgalkan qaybta ka ahaa ayaa warbaahinta u sudusiyay in arintan ay jirto, sidoo kalena weerarkaas uu ahaa weerar abaabulan oo ka dhana kooxda lagana qaaday duleedka deegaanka ama degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug, sidoo kalena ku wajahnaa dhinaca halka lagu magacaabo Dumaaye oo hoostaga isla Xaradheere koonfurta gobolka Mudugna ka tirsan. gobolkaas maalmihii la soo dhaafay xaaladeedu waa ay deganeed, ma jirin howlgal isdaba joog ah ama howlgal toos ah oo ka dhan ahaa dagaalamayaasha al-shabaab. laakiin xalay waxa ay ahayd habeen kale oo ka duwan habeenadii la soo dhaafay iyo kuwa kale ee ka dambeeyaba, iyadoo aanan la ogeyn howlgalkan inuu noqon doono mid sii socon doona iyo in kale. dhinaca kale, gabar lagu magacaabo Saabiriin oo 5 maalin ka hor lagu kufsaday kadibna lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo ee koonfurta gobolka Mudug ayaa ku soo waramaya ama gobolka Mudug xarunta gobolka Mudug ayaa ku soo waramaya in halkaas wali gabadhan ay talaagad ku jirto ee jirin cid si rasmi ah hadalheynteedu ay markaasi ka warhayso ama hadalkeedu ka warhayso oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland. dhinaca Puntland ayaa gabadhan lagu dilay. waxaa maalmihii la soo dhaafay socday mudaharaadyo iyo kulamo gaargaar ah oo ay qabanayeen haweenka gobolka Mudug iyo guud ahaan kan magaalada Gaalkacyo oo ay xuquuq u raadinayeen gabadhan lagu magacaabo Saabiriin oo la tilmaamay inay ka mid ahayd gabdhaha deegaanka si weynna dhalinyaradu ay uga caroodeen, gaar ahaan gabdhaha. waxaa la tilmaamay in dhimashadeeda iyo kufsigeeda kadib ay dhaceen banaanbaxyo ama magaaladaasi Gaalkacyo dhowr saacadood ay kala xirneed dhagxaano wadada ay dhigeen haweenku, taas oo ay ku dalbanayeen in cadaalad loo helo gabadhan Saabiriin lagu magacaabo oo la tilmaamay inay talaagad ku jirto tan iyo markii kufsiga iyo dilka la isugu daray oo magaalada Gaalkacyo mid ka mid ah xarumaheeda caafimaad ay ku jirto. wararka aan hadda helayno ayaa ku soo waramaya in qoyskeedu saacadihii la soo dhaafay shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada Gaalkacyo, kaas oo ay kaga hadleen in Saabiriin aanan la aasi doonin ilaa laga soo qabto gacan ku dhiglayaasha, maxkamad la geeyo, la xukumo, kadibna xukunka lagu fuliyo. waxa ay tilmaameen in Saabiriin iyo dadkii dilayba hal mar la isla aasi doono oo aysan marnaba qaadan doonin gorgortan kasta oo lagu doonayo in Saabiriin lagu aaso gacan ku dhiglayaashana lagu fakiyo. waxaa walaasheeda ka yar ay sheegtay
in waxa ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ay ahayd wax aanan loo dulqaadan karin oo nasiib darro ah. isla dhinaca kale walaalkeed oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in waxa walaashiis lagu sameeyey ay ahayd wax dunida iyo guud ahaanba Puntland gaar ahaan deegaanada Soomaalida si weyn uga cusub, taas oo ka dhigan in dhibaatooyinkii ka dhacay gudaha magaaladaasi gaalkacyo ay ugu darnayd gabadhan kufsiga iyo dilka la isugu daray ee hadda ku jirta talaagad ku taala gudaha magaaladaasi gaalkacyo ee koonfurta gobolka mudug. waxay ku soo korray saaxiibayaal guud ahaan wararkan iyo idil barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa, idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi hela.